السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha maanta hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka hadlaynaa casharadeenna taxanaha ahaa maadada clinical reflection. Maanta waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo anisometropy waa nooc ka mid ah refractive error-ka indhaha ku dhaca, waana labada power isha inay kala duwan yihiin. Tusaale ahaan right eye iyo left eye, kan ishaan inay tahay +3 ishaan ay tahay +1 waa -1 way kala gedisan yihiin. Marka saas ay tahay qofkaasi oo kiyaal noocaas ama garaadiis aragtidiis ay kala mataqaana difference u dhaxayso waxaa loo yaqaanaa anisometropy. Marka waxyaabaha sababa maxaa ka mid ah qofka inay mataqaana difference aragtidiis inay kala gedisan tahay oo difference power ay tahay. Waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah refractive error-kii aan hore ugu soo hadalnay, inuu qofkan astigmatism qabo oo mataqaana inuu qabo hypermetropy ama myopia, qofkaas inuu qabo cataract oo mataqaana oo asymmetrical macnaha phantom aan lahayn, oo ishaas oo mataqaana hal ilna inay iska fiican tahay ishaas kalena cataract oo qarsoon oo calaamad dhan aan lahayn inuu qofkaas uu qabo, oo calaamadihii lagu garanayo inuu qofkaas uusan qabin. Sidoo kale aphakia, hal il haddii lensi laga bixiyo waxyaabaha keena ayay ka mid tahay mataqaana anisometropy. Ugu dambeyntii waa lagu dhashaa oo congenital ahaan waa imise nooc ayaa jiro? Ku dhawaad 3 nooc ayaa jiro, waa simple iyo compound iyo mixed. Simple-ku wuxuu noqon karaa hypermetropy ama myopia noqonaa, halka compound-ku uu yahay labadaba inuu noqdo hypermetropy ama myopia inuu noqdo. Kan laakiin one meridian to another one kaliya wuxuu noqonaa myopia, midka kan wuxuu noqonaa hypermetropy oo mixed. Calaamadaha oo qofka ka cabanaya waxaa ka mid ah headache, madax xanuun aad u tiro badan oo qofka dareemaya, sababtoo ah qofkan labadiisa in laba wax kala gedisan ay arkayaan, oo mataqaana ishaan zaa'id wax zaad u tiro badan ku arkaysa, ishaan wax iftiin sawir zaad u fiican ay gudbinaysa. Tusaale ahaan hal right eye haddii mataqaana ku gudbi haddii +3 wax ku arkayso oo nadiif u yahay, leftigana uu yahay -1 ama +1, qofkaani mataqaana ishaan right eye clear qof si fiican wax u arkaysa, laakiin leftigana blurration oo iftiin oo wax si fiican u arkaysa. Marka headache-ka saasaa keena, madax xanuunkaasi ayaa imaanaya. Sidoo kale iftiinka qofka inuu dhibo photophobia in lagu arko, sidoo kale double vision laba inuu wax u arko, calaamadihii eye strain-kan in lagu arko, daalka, xanuunka, indha xanuunka, qofka in la dareemo daal iyo waxaas lagu dareemo. Complication ka dhashay qofka haddii laga daaweyn waayo dhibaatooyin aad u tiro badan ayuu gaarsiinaa, sida lazy eye, hal il inay isha fadhiisato, isha dhan hal il inay fadhiisato oo wax laga qaban waayo, oo hal il kaliya qofka oo mataqaana inuu ku shaqaysto. Hashaas il mataqaana waxaa loo yaqaanaa lazy eye, isha inay hal il lazy inay noqoto. Sidoo kale squint eye, indho qoloca mataqaana ayuu qofka halis u galaya haddii qofka laga daaweyn waayo. Ugu dambeyntii maxaa lagu daaweeyaa? Waxaa lagu daaweeyaa ookiyaalo lagu saxaa, ookiyaalo lagu saxaa qofka, ookiyaalihii saxda la siinaa, best correction-kiisa oo labada indho mataqaana balance ay ku noqonayaan la siinaa. Sidoo kale haddii lacala laakiin waa xaalad emergency of treatment rabto, qofkan laguma fiirsanayo oo marba hadduu labadiis indho difference power ay kaliyin waa si degdeg in loo daaweeyaa. Sidoo kale haddii oo aad u daran yahay waxaa lagu daaweeyaa glasses loo yaqaano anisoconia lagu daaweeyaa. Sidoo kale contact lens lagu daaweeyaa. ugu dambeyntiina surgery lagu daaweeyaa. Waa idinkaga mahadcelinaya daawashada video. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.